jaamacadda aadnaadan oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee ku yaala magaalada Hargeysa oo hore looga baran jiray cilmiga caafimaadka ayaa waxa sanadkan lagu soo kordhiyay kulliyado cusub oo jaamacaddaasi bixin doonto kuwaasi oo kale ah IT oo software engineering iyo advanced engineering u kala baxaya sidoo kale waxa jaamacadda lagu soo kordhiyay kulliyadaha business and accounting oo darajada ugu sareysa ee CPA 3 ay ardaydu ku qaadan doonaan imtixaanka kama dambaysta ah marwa aadnaadan Ismaaciil asaasaha ahna mulkiilaha jaamacadda aadnaadan oo laga bartay soo saarista arday kooban oo tayo leh ayaa warbaahinta la hadashay waxbarashada ugu wanaagsan hadaba sanadka maanta aanu diin soo kordhay baan idin sheegaya dunida waa casri waa IT aniga dhowriyeysdeeda jira IT-ga ku shaqaysanaya miiskayga fadhiya IT la'aantii isbitaalna ma dhiseen jaamacadna ma fureen wasiir ma noqdeen darajada maanta aan gaarin IT bay gaarsiiyay laakiin IT-na waa IT iska meel soka ah IT-na waxa weeyaan IT-ga ugu casrisan laba kulliyadood baan soo kordhinay jaamacadda aadnaadan soo kordhisay waxa weeyaan IT software engineering dad badan baa ku imanaya koonay warbahalka iyo hagaaji oo software-ka iyo hagaaji maxaad samayn haddaad garanayn ta kalena waxa weeyaan advanced IT waa darajada ugu sareysa ee casriga ee maanta la gaaray warno meel walba waa lagu baraa IT warno hore anigu baan bari jiray tii hore loo bari jiray mar rabna inaanu barno dad badan baa ayaa u dhaga oo bara advanced IT baan rabnaa inaad barato oo aad soo gaadho wax walba waa IT takhasusyo haddana u sii kala baxda taas haddana sii kala baxda oo sii kala dhuuxi kartaa oo sii kala baran kartaa waxaan kale ku soo kordhinay oo aanu u keenay qof chartered accountant ah level 3 waa levelka ugu sarreeya waa ka banking dhiga waa ka bookkeeping dhiga waa ka accounting dhiga waa ka business administration dhiga intaas oo dhan waxaad ka helaysaa jaamacadda aadnaadan oo dhammaantood wada heer sare oo kaliya aanu dhigno waxaanu taas soo raacinaa oo imikaba dhowr baanankii baa batay xawaaladihii baa batay hadal noo socdaa inaanu qolooyinka baananka ka shaqeeya shaqaalahooda aanu courses gaagaaban oo laba toddobaada aanu barno oo ay shaqaalahoodu say shaqada uga soo baxaan aanu u samayno courses aanu aqoontooda kor ugu qaadno marka heer kasta baynu ka gaari karaa ka aanu tiigsanayna waa mar walbaba heerka ugu sarreeya wixii ka heerkaas sare ka hooseeya dadka kale u dayna haddaan anagu samaynayno gacanta u qaadno waa waxaanu hubinay waxaanu isku hubnay inaanu dhigi karno waa waxaanu ognahay inaanu ku wanaagsanahay waa waxaanu ku soo dhaweynaynaa ardaydeena ardayga aan ku wanaagsanayn meel kale aan u dirnaa laakiinse ardayga wanaagsanay waa ka iminka hadda markaad ii timaadeen arday Uganda scholarship ka helay oo imtixaan galay oo ku guuleystay ayaan warqadii hubaal celintii aan hadeertu u saxiixay marka darajo sare la tiigsada darajo wanaagsan waqti la iska gama lumiyo wax iska maalayacnaya oo hadhow warqadun lagu siiyo waxaad cilmigeeda dhuuxday baratay garatay ku guuleysatay ku shaqayn karto ayaa la tiigsada waxaan diyaar u nahay inaanu jaamacadaha aanu isku xidhanahay inaad ardaydooda la tartartaan oo wax la barataan waxaanu diyaar u nahay inaanu ku gacan qabano recommendation ka siino ardayga wanaagsan aanu isugu marxaati furno in ardaygaas wanaagsan yahay isma qariyo ardayga wanaagsan inaanu baritaarno oo aanu raano ordo meelahaas kaga recommendation ka bixino marka hooyo waan idin ducaynayaa dadaala noo kaalaya warbixin naga qaata eega waxaanu qabanayno isu kaya barbar dhiga waxa aanu hayno iyo wax meel kale yaala dadba go'aankiina ka gaadha